People are saying the prime minister is there to solve because that conflict is dormant. It's not resolved. It's not resolved yet. There are prisoners or detainees in both sides. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام مدحوينها الصومالية أو رنتي قاب ياب له ودعاية ما وحو موجنا أما تصالينا إن ماشى رئيس الوزراء وسنجوجني قف سيدتك مركي هربا إيه جرين aan ahayn matalaad nin leh ama go-aan gaare ah ayaa meesha jooga. sidoo kaleeto ajandaha dadka SSC ay aad u quudareynayaan oo ay ugu horeyso in madasha go-aan gaarista aayaha Soomaaliya ay qayb ka noqdaan SSC oo ay hadda waxa ugu rabitaan badan yihiin taasi ay tahay wax ka duwan inuu ra'iisul wasaaraha u tagay ayuu madaxweynihii sheegaba oo arintaasba aysan miiska saarnayn iyo in hadda la abuuro xiisad kale oo runtii soo kala dhaxgali karta dadka Soomaaliyeed sidoo hadalku dhigay madaxweynaha oo su'aal English lagu soo tuuray isagoo ka qayb galaya shirka Turkiga ka dhacay ayaa waxa uu ku jawaabay. People are saying the prime minister is there to solve because that conflict is dormant. It's not resolved. It's not resolved yet. There are prisoners or detainees in. wuxuu leeyahay dadka ayaa warkan iska wada horta oo ah in ra'iisul wasaaraha arimahan uu u tagay xogaa waxa ka badbadinaya laakiin ra'iisul wasaaraha wuxuu halkaas u joogaa uu leeyahay inuu xaliyo khilaaf wali aanan dhamaanin oo ama xal aan laga gaarin ayuu hadalku dhigaa madaxweynaha Soomaaliya. Both sides, so there are still conflicts that has not been peacefully resolved. waxaa jiru leeyahay maxaabiis labada dhinac ay kala haystaan oo Somaliland ay haysato maxaabiis SSC-na ay haysato maxaabiis Somaliland ah. So there are still conflicts that has not been peacefully resolved. marka wuxuu leeyahay waxaa jira wali khilaaf aan si nabad ah xal lagu gaarin ama laga xaltamin ayaa wali jira oo bahasha maba dhabow leeyahay. So the prime minister is there to create a conducive environment where negotiations can take place. marka ra'iisul wasaarahayga wuxuu meeshaas u joogaa uu leeyahay abuuridda jawi nabadeed oo lagu wada hadlo. meesha waxa uu joogo aqoonsi ma aha, wuxuu u joogaa sidii Somaliland iyo SSC xaaladda ka dhex taagan arintooda loo abuuri lahaa jawi ay ku wada hadlaan. alaabta aqoonsiga ima jirto leeyahay. haye madaxweyne ku socdo. obstacles for the genuine negotiations to take place, and prime minister is visiting there to remove some of those obstacles. waxaa jiru leeyahay caqabado muuqda oo isku horgudbaya in jawigaas uu hirgalo wada hadalladu ka hadla. marka ra'iisul wasaaraha uu xaq u joogaa uu leeyahay inuu waxaas qaado oo uu abuuro jawiga la rabo inay labadan walaalaha ah ee maamul ay ku hadlaan so that the two parties, the two groups can sit together, can negotiate and reconcile peacefully. Mr. President. marka ra'iisul wasaaraha intaas kaliya waaye wuxuu meesha u tagay ma jirto wax kale uu leeyahay dadaa ka badbadinayo inuu hadal ku bilaabo madaxweynaha. people are saying dadka ayaa dhahaya wuxuu ka soo hoga tusaaleynaa waliba social media dadka ka hadlayo dhahaya buunbuunina arrintan SSC maaragtay in la aqoonsado waaye maamul gooni u taagan waaye ma ka xumi aniga in la aqoonsado hawl aniga ii taalana ma aha laakiin waxa ka hadlaa ra'iisul wasaaraha ayuu horta madaxweynaha mar يعني إنه رئيس الوزراء كذب هذا أو وحيابها هوغا ما في عنين لأن عقلتكم حلي إن كان رئيس الوزراء أول بما جاري كرني ليه إنه أصلا كل واقع أو ده وأقون صنّي سوايو بالمدة وما أقرأ بالمدة مركا وركا وحوكت لي هذا إن سوماليلاند دنك هذا أي تبشقبته SSC دنكو تبشقبان دتكون ولا عليهن محابيسنا أي كلا هيستان أو أي لمهرانتها إنه ولا هذا مركا رئيس الوزراء أول بقى تجتان كايا هدي وصل كورنين SSC إنه نخضان مامو قال أو كحقوق أمام الجبلية دلك وهم حي تاريخ ده قريسي هالك أو تكتي وأن كأهين إن لجوك لكعي وأديك أعرف تقولي بقى أنا أسكجام مرتو ما على هذا مرحومك كوجود بي إن بدن دلك كوجو شيء جايين إن أي لحريرته صارت لجوه بحجي مثل هذا حمو كرسي أكو فريس دلك أكو متشي إن أنا أكو متلين
رئيس الوزراء والله والله هاي مدحوينها هاي هوس كو ترى رحنا دتك انت اللي قال السلام عليكم